Assalaamu calaykum soo dhawaada dhammaan saaxiibayaal muuqaalkani waxaan idinkugu soo gudbin doonaa warbixino ku saabsan Sweetcoin oo runtii ah coin cusub oo lagu soo daray bahda cryptocurrency sidoo kale coinkani wuxuu si rasmi ah bahda cryptocurrency ugu soo biiray gabagabadii sanadkii tagay ee 2023 wuxuuna haatan yeeshay qiimo ka sareeya qiimihiisii hore ee suuqa qiimihiisii hore wuxuu ahaa tusaale 1540 Sweetcoin ba wuxuu u dhigmayay lacag gaaraysa $10 iyo 1 senti balse haddeertan wuxuu marayaa 1170 Sweetcoin ba waa lacag gaaraysa $10 iyo sentiyaal taasoo la dhihi karo in coinkan uu noqon doono coiniska ugu sarakaca fiican sanadka soo socda ee sanadda 2025 haddii uu alla idmo sanad ka hor waxaan ka mid ahaa dadka aaminsanaa in applicationka Sweetcoin ee socodka ama dhaqdhaqaaqa lacag looga sameeyo uu yahay mid aan lacag laga sameyn karin oo ah runtii mid aan jirin oo waqti lumis ah balse waxaan sameeyay tijaabooyin cadad oo dhab ah lacagna loogu sameyn karo applicationka Sweetcoin sidoo kale lacag la bixis marka aad sameynayso way ka fududahay wayna ka dhib yar tahay sidii hore waayo coinkani waxa aqoonsan dhammaan suuqyada looga adeegto cryptocurrency-ga muuqaalkan waxaan si faahfaahsan aan uga hadli doonaa applicationka Sweetcoin muuqaalka xigana hadduu alla idmo wuxuu noqon doonaa oo aan kaga hadli doonaa sida loola baxo lacagta Sweetcoin-ka ee ku jirta Sweet Wallet-ka loona sarfado anagoo adeegsan doona mid ka mid ah waladyada kala ah Trust Wallet ama KuCoin Wallet si aad isaga diiwaan geliso applicationka Sweetcoin tag commentiga ugu horeeya ee muuqaalkan ama qaybta description-ka kadibna ku dhufo linkiga ay ku qoran tahay registration ama isdiiwaan geli markii aad ku soo dhufato linkiga muuqaalka aad daawanayso hoos yaala ama qaybta commentiga ugu horeeyaala sidan ay ku soo bixi doonaa markii sidan uu ku soo baxo waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay accept invite haddii sidoo kale mobilka aad adeegsato Android uu yahay Google Play aad ka dooranaysaa haddii uu Apple uu yahay App Store aad ka dooranaysaa oo halkaas aad kala soo degaysaa haddii linkiga intaad raacdo uu ku soo degi waayo markaad soo degsatay kadib Gmail-adaada mid ka mid ah ayaad sign up aad ku oran doontaa Google account aad ku dhufanaysaa kadibna Gmail-adaada mid ka mid ah aad ka dooran doontaa markaad ka doorato kadib oo sidan ayuu soo furmi doonaa markuu inoo soo furmo oo anaga hadda mid hore ayaan kacsanay qaababka aad lacag ugu sameyn karto ayaan ku sharxi doonaa oo waxaa jira dhowr qaab oo lacag looga sameyn karo applicationkan Sweetcoin coinskaas aad arkaysa oo balance meesha ku qoran tahay ka caddaay applicationkan coinskaas goordhow ay fasaxi doonaan oo bishan aan yiraahdee sanadkan gabagabadiisa ama dhamaadkiisa ay fasaxi doonaan sida warbixintooda ay ka caddaay laakiin dhammaan ma wada fasaxi doonaan qayb ay u fasaxi doonaan sida haddeer bay sameynayaan anaga dhowr jeer ayaa Sweetcoin aan la baahnay anagoo adeegsanayna Sweet Wallet sidoo kale qaababka ugu badan oo lacag looga sameyn karo Sweetcoin waxaa ka mid ah inaad qof aad ku azuunto linkiga sidoo kale waxaa jira wax kale loo yaqaan daily reward wax loo yaqaan oo adoo ay siin daawanayad lacag ku sameyn kartaa sidoo kale waxaad lacag ugu sameyn kartaa adigoo games ciyaaraya qaababkaas kala duwan aad lacag ugu sameyn kartaa haddii aan ku dhufano Sweet bonus meesha ku qoran tahay waxaad arki doontaa mid ka mid ah qaababka lacag looga sameeyo waxa ka mid ah daily reward waxa kaloo ka mid ah add friend waxa kaloo ka mid ah earn free Sweetcoins si aan u fiirino qaababka lacag looga sameeyo waxaan ku dhufan doonaa earn free Sweetcoins meesha ku qoran tahay oo ah qaybta saddexaad qaybtan waxaad qaban doontaa xoolo yaryar ama taskis yaryar ayaad qaban doontaa sidoo kale games ayaad ciyaari doontaa habkaas ayaadna lacag ugu sameyn kartaa sidaad arkaysa wuxuu inoo soo baxay geemam aad u fara badan mid walbana waxaa saaran tiro aad u badan oo Sweetcoins ah coins aad u badan ayaa saaran sidaad arkaysaan level walba aad gaarsiiso waxay ku siin doonaan Sweetcoins qaybtan habkaas ayaad lacag ugu sameyn kartaa oo taskiskan ayaad qabanaysaa qaybta xigta oo labaad waxaa loo yaqaanaa invite friend saaxiib ku azuun mar walba aad saaxiib ku azuunto waxay ku siin doonaan Sweetcoins ay ku siin doonaan si aad markii halkaas aad ku dhufato waxaad ka sii tagi doontaa meesha ay ku qoran tahay friends markaad ku dhufato waxa uu ku soo bixi doonaa linkiga aad ku azuumi lahayd qofka kale ayuu ku soo bixi doonaa friends markaad ku dhufato oo hoos aad u baxdo hoos aad u yara digto waxaad arkaysaa linkiga oo maaragtay
invitation linkiga ayaad arki doontaa aan isla fiirino waa kaa midaad arkaysa waa invitation linkiga oo koobi ayaad odhanaysaa kadibna linkigaas ayaad qofka aad u diraysaa WhatsApp Facebook Messenger meel alaal meeshaad doontid ayaad ugu diraysaa intaad koobi aad dhahdo intaas waxaan rajaynayaa inaan isla fahanay markii 20 qofood aad ku casuuntidna waxay ku firi doonaan influencer hub barnaamij la yiraahdo qaybta koowaad oo ah daily reward markaad ku dhufato wuxuu ku keeni doonaa halkan oo ah rewardiyada maalinlaha markaad ku dhufato mid ka mid ah wuxuu ku soo bandhigi doonaa senior ayaysiintaas yar markaad dhamaysid kadib waad iska canceli doontaa oo iska xiri doontaa markaad iska xirtidna coins ayuu kugu dari doonaa qaybta kore ee ay ku qoran tahay balance aan isla fiirino ayaysiintii markay dhammaad kadib waan iska canceli doonaa oo hal istilaabtaas ayaan taaban doonaa sidaad arkaysaan halkaas balance ay ku qoran tahay ayaa inoogu darsoomay coinska 0.9 coins oo sweet coin ah ayay inoogu dareen sidoo kale ayaysiinta labaad markaad ku dhufato sidaas oo kale ayay iyadana u furmi doontaa 24 saacadoodba mar ayay soo bandhigi doonaan hayaysiinta waxaan rajaynayaa intaas inaan isla fahanay oo saddexdan qaab ayaa ugu muhiimsan qaababka lacag looga sameeyo sweet coin sidoo kale waxaan isla aadi doonaa sweet wallet oo ah barnaamijkaas sweet walletka markaad furto oo sweet walletka waxaad ku xiri doontaa sweet coin kadibna coinska oo ku jira sweet coinka halkan ay u soo wareejin doonaan si qayb ay halkan ugu soo wareegi doonaan oo marba waxay ku furi doonaan lacag yar oo aad la baxdo midaas ayaad samayn kartaa hadeer waad arkaysaa balansiga waxaa ku jira wax yar waxaa ku jira saan u sameeyay $4 bis ayaan kala baayay oo qaybtan sweet walletka ay u soo wareejiyeen sweet coinka marka sidaas ayaad lacagtaad kula bixi kartaa lacagta markaad la bixiso sariflayaal oo waxa la heli karaa oo lacagtan sweet coinka ku sarfa oo Soomaaliya sidoo kale waxaa jira inaad u wareejisato walletyadaada sida Trust Wallet iyo KuCoin Wallet walletyadaas ayaad u wareejisan kartaa sidaan wada ogsoonahay qaybta cryptocurrency ayaa lagu soo daray sweet coinka haddii aan isla fiirino oo Trust Wallet aan tagno markaan Trust Wallet aan ku dhufano si aan u aragno in sweet coinka lagu soo daray qaybta crypto waad arkaysaa in ay ku soo dareen qaybta hoose markaad fiiriso oo Trust Wallet-keena waa taa sweet coin halkaas ay ku soo dareen oo cryptocurrency ayaa lagu soo daray qiimahan maadaama ay iska liidato oo kunkii uu yahay $10 $1,100 ama $10 uu yahay laakiin haddana waa qiimo fiican oo waxayna u badan tahay sanadkan hadduu sii dhammaado 2024 in lacagtan ay sii qiimo aad u wanaagsan ay yeelan doonto sida kriptooyinka kale qiimo aad u wanaagsan ay yeelan doonto marka waan iskugu boorinaynaa inaad samaysataan haddaba raa linkiga hoos yaala muuqaalka hadeer aad daawanayso oo isku diiwaan geli si aad u hesho abka rasmiga ah ee sweet coin intayna muuqaalka xiga waxaan kaga hadli doonaa sweet coinska ay u wareejiyeen sweet walletka sida loola baxo sidoo kale waxaan idin tusi doonaa habka withdraw loo sameeyo haddii alla weyn uu ka raali noqdo intayna muuqaalkan mid la mid ah dib uga kulmi doonaa laydankii isma dhaafin